gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland hayee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhaxmartay deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan degmada Ceelafeen ee gobolka Sanaag waxaan ugu baaqay in nabadda la soo celiyo muddo fara badan oo horena baaqayaan ugu diray maanta waxaan niri shacabka reer Soomaaliland culimada dhalinyarada waayeelka dhammaan waxaan ka codsaday inay u duceeyaan dadka walaalaha maaha baaq baynu u diraynaa waa inaynu u duceyno waayo waxaan way soo noqnoqotay in Ilaahay quluubtooda isu soo celiyo in Ilaahay dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ee dadka ehelka ah ee walaalaha Ilaahay meesha ku wada abuuray ee isu soo noqnoqonaya Soomaaliland oo dhan cid qof kasta saqiir iyo kabiir ay aad uga damqadeen in loo duceeyo in Ilaahay waxa ka dulqaado gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland hayee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa mar la weydiiyay in xisbiga talada Soomaaliland hayee kulmiye gudoomiyihiisa lagu wareejinayo siyaasi Cali Maxamed Warnacade waxa uu kaga jawaabay waxa Cali Warnacade iyo xubno kale oo Soomaaliland horta xisbigan markaan ka hadlo xisbigu waa xisbi dimuqraadi ah qof kasta oo xisbiga ku jira shuruuc buu leeyahay shuruucda hadduu buuxiyo qofku waajib uu leeyahay inuu sharaxo Cali Warnacadena dadkaas ka mid yahay waa nin odaya muddo badan dalkan u soo shaqeeyay xisbigana ka tirsan hase yeeshee maalinteedii la sharaxayay ee xisbiga waqtigiisii gudoomiyenimada la isu sharaxayay maanta ma joogno madaxweynaha gudoomiye ka ah waqtigiisina muu dhamaanin oo gudoomiyenimada noqonayay damaalinteeda ayay noqonaysaa taa musharaxnimadu ama hogaankayga ha noqdo ama qof kale ha noqdee ninkii damca ka haya damaalinteeda ay noqonaysaa aniga iyo madaxweynuhu muddo fara badan baanu soo shaqaynay wada shaqaynay rag saaxiiba baanu nahay ku-xigeenkiisii baan ahay imakana sidii iyo si ka wanaagsan baanu wada shaqaynaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaan weydiiyay su'aalo dhignayd sida tan suuqa waxa ku jira Axmed Cabdi Dheere oo gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ee labaad ee xisbiga gudoomiye ku-xigeenkii koobaadna xil buu hayay isaga laftiisa waqtigii madaxweynuhu xukuumadda soo dhisayay wuxuu iska rajeynayay inuu liiskaasi ku jiro oo arintaasi ay yar keentay kala fogaansho madaxweynaha taa maalin horaan ka jawaabo aan ka hadlay anigu xisbiga gudoomiye ku-xigeenka labaad baan ka ahay nin xil xukuumadeed doonayana haddaan doonayo horaan uga jawaabay taa oo aan idhi haddaan doonayo tanna waan ka mid noqon lahaa haddaan xil doonayo I'm sure 100% inaan ka mid noqon lahaa wasiirada ka mid noqon lahaa haddaan doonayo tii ka horreysana waan ka mid noqon lahaa ee siidaayo xafiiskan aan joogo ayaan aaminsanahay inaan xusbigan dhiso meel gaarsiino intaa uu maanta leekaaday codkaa uu helay ee faraha badan leh mid ka badan uu helo Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa